السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو قلب فرن كسو دو يوتيوب جانال كيغا فواد قبيالة ديد كوحدنو مر والبا إيميل والبا فواد قبيالة ديد وحجا لها مقال كنا نوغا حدلو فرينكا إيا سامينتا أو كياشو قفكا دمركيسا أما عافيماتكا دمركا هادبا فرينكا dad badan oo Soomaaliyeed oo u arka ayaa jira inuu yahay wax isla markiiba laga soo kabto oo iska caadi ah haweeneydu nin kale si fudud ku guursan karto ninkuna haweeney oo si fudud ku guursan karo hadaba xaqiiqadu ma aha sidaas oo way ka duwan tahay furiinka doodi kama taagna in uu mararka qaarkood xal yahay uuna xal u yahay xaalad cakiran oo labada qof ee nolosha isku darsaday ay xalin waayaan وانا سببت الله سبحانه وتعالى وفرينكا حلال uga dhigay hadaba dad waxa jira marka ay kala tagaan laga yaabo gabadha ama ninku inuu dhigto xaflad taas oo magaceeda loo yaqaano wixii ku soo maray kameedo hadaba qofka wax furay maskaxdiisu waa sidee ayuu u fikiraa maxaa maskaxdiisa ka guuxaya aniga fuadahan waxaan ahay tusaale nool dhowr sano ka hor ayaa furiin uu naga dhaxdhacay aniga iyo gabar nolosha aan wadaagnay caruurteeda hooyadoodna ah qadarin aad u weyn aan u hayo nolosheedana wax badan u soo qabatay hadii goorna aan xusuusto wanaageeda iyo samihii ay reerka ku soo dhaqaysay in muddo ah ee baweynana mar walba waxaan u weydiiyaa dambi dhaaf iyo janno inuu ku abaalmariyo wadaci karta inaa iminka ila yaabto dhaxdid rag badan ah haweeneydii kala tagaan way ka cawdaan way caayaan muuqaal kale ayaan uga hadli doonaa taas haduu ee baweene idmo hadaba furiinka markii aan galay kadib waxaa igu dhacday muddo sanad iyo barah in aanan nolosheedu ahayn mid caadi ah waayo waxyaabo badan ayaa dib u go'onaysaa go'aano khaldan oo qaadatay ayaad aad iyo aad uga shalaynaysaa laakiin waxaan arkay rag aniga xilligaas furiinka nolosha iyo qofka nolosha wadaagayna oo kala tagnay iyaguna xilligaas ay kala tageen qaarkood casuumado ay dhigayeen heblaaye ayaan kala tagnay wixii ku soo maray kameero laakiin xaqiiqadii markaan soo fariisano oo wada hadlayno indhahooda waxaan ka deehan karay farxad la'aan wajiyadoodana waxaa ka muuqday daal aad u daran oo furiinku uu sababay iyo mashquulka maskaxdooda ku furan kaas oo anigana igu furnaa balse anigu aan qiranayay laakiinse iyagu aysan qiranin wana tan maanta aan jeclahay inaan ka hadlo dadka qaarkood waxaa ka tagta furiinka kadib kalsoonida kuma dhiiradaan mar kale inay guursadaan sanado badan ayay ku qaadataa wallow ay wanaagsan tahay inaad ka fiirsatid guurkaaga kale qofka aad la wadaagaysid nolosha si mar kale burbur qoys uusan kuugu iman hadaba marka ay timaado furiinka kuwa xafladaha dhiganaya ee yiraahda anagu waxaan ka meeranaynaa wixiina soo maray xaqiiqatan ma aha nolol wanaagsan ama mid ka tarjumaysa farxad doola cadeyntaasi waa mid beena waayo way adag tahay qof aad nolosha la soo wadaagaysay muddo dheer in aad si fudud aad ku ilowdid qofka kale wuu soo xasuusanayaa wallow ay jiri karto in la isu qabo cuqdad taasoo ku talinayo in qofka hadaa kala tagtaan aa cafisid wanaagiisana aad ka sheekaysid wixii aad ku khaldaneedna adigu aad saxatid maanta oo aad tiraahdid shalayto waxaas iyo waxaas iyo waxaas ayaan ku khaldanaa waa inaan maanta saxaa gurigayga kale si uusan iga burburin waana mid aniga fuaad ahaan shalayto wixii gurigayga iga burburay oo ku khaldanaa aanan diyaar u ahayn gurigayga kale oo aan dhisan doono in isla wixii iga dhacaan oo khaladkayga hore 10 ayaan ka bartay waxyaabo badan oo qiraya inaan ku khaldanaana way jiraan waxa la iga khaldanaa ma aha inaan sirteeda iibiyo oo halkan aan uga hadlo gabar sharaf badan oo shalayto nolol soo dhaxmartay hadaba walaalka Soomaaliyeed ee muuqaalkan daawanaya ee furiin soo maray waxaan leeyahay mar kale kalsooni waad dhisi kartaa mar kale wax waad jeclaan kartaa mar kale waa lagu jeclaan karaa ma aha haddii qof xun nolosha aad la soo wadaagtay haddii qof aad wax isku qabateen oo aad isu maara weydeen oo aad ismari weydeen nolosha aad la soo wadaagtay qofka kale inuu saas kugu noqon doono
waxa koowaad inta la kuusanaya waxay tahay marka koowaad in aad adigu isnoqotid, in aad wax ka baratid khaladaadkaagii hore, inaad saxdid wixii shalay aad ku khaldaneed, inaad noqotid version cusub ama qof cusub oo adiga ah. In go'aamadaada aan lagu meerin oo aad noqotid qof go'aamadiisa leh. nolosha qoyska uma baahna inaad hooyada iyo aabaha dhageysatid, uma baahna inaad saaxiibada dhageysatid. waxay u baahan tahay in qofka noloshu kala dhaxayso inaad dhageysatid. wixii idinka dhaxeeya miiska inaad soo saarataan oo aad ka wada hadashaan. haddii horey aad u ahayd qof go'aamo adag oo keligiis go'aanka qaata oo keligiis hogaaminta jecel, noloshaada labaad waa inaad ku fikirtaa sidii aad u noqon lahayd qof go'aanka la wadaaga qofka uu nolosha maanta la wadaagayo. taasi waxay kuu soo horseedi doontaa xasilooni iyo guurkaaga kale inuu noqdo mid guuleysta. dhinaca kalsoonida markaan u nimaadno, ha ku qiimeen qofka aad maanta nolosha la wadaagaysid qofkii hore. ku qiimee inuu yahay qof cusub oo aragti leh, oo go'aamo leh, oo ah qof asagu go'aankiisa qaadan kara. badanaa waxaa u badan rag iyo dumar markii la yidhaahdo dhinaca dumarka. gabadha waxay ku leedahay maxaad aniga nolosheeda kusoo kordhin kartaa oo farxada haddaaba tii hore soo kala tagteen oo soo furtay. gabadha saa kuula hadlaysa iyadana nin ayay soo kala tageen oo soo furay. gabadhaasoo kale waxaan kula talin lahaa adigu marka hore emotionally, macnaha dareen ahaan deg oo xasil. guur kale ha ku degdegin, shukaansi kale ha ku degdegin. dietkaaga ama cuntada aad cunaysid wax ka bedel, samee jimicsi, wax badan akhri, buugaagta ku saabsan xiriirka sida loo wanaajiyo iyo sida la isu bedelo ama loo yaqaano personal developmentiga akhri. taas waxay ka caawin doontaa inaad noqotid qof cusub oo si cusub oo wanaagsan u fikira. kadib shukaansi bilow. joojina in aad dhaleecaysid oo ninka imika kula haasaawaya ku dhaleecaysid hadduu xaas horey usoo kala tageen. maxaad usoo kala tagteen? waayo adiguba nin ayaad soo kala tagteen. haddii taas dib lagugu xanuujiyo xanuun ayaad dareemaysaa. waana midda keliya aan idilkeen ku guuleysan karno haddaynu nahay garoobada Soomaaliyeed, rag iyo dumarba. soo sax maaha dee ninkii gabar soo kala tagaan waa garoob, gabadhii nin soo kala tagaana waa garoob. waa inaynu magaca wadaagnaa oo dalad midaysan aynu noqonnaa. guntii iyo gunaanadkii waxaan leeyahay furiinku marnaba ma wanaagsana, laakiin mararka qaarkood waa xal. laakiin furiinka iyaynaan ka dhigin wax caadi ah. furiinka hortiis aynu raadinno xal. xalkaas oo ah oo aan kula talinayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax barta inay bartaan waxa loo yaqaano family therapy, oo ah sida dhibaatooyinka qoyska loo xaliyo loola taliyo. halkii aynu kula ordi lahayn adeer ama aabo ama daris ama saaxiib aan iyagu waxba ka aqoonin sida qoyska loola taliyo. wadamada reer galbeedka waxaa jira goobo loo tago family counseling waxa loo yaqaano, in labadii qof ee isqabay haddii isku dhacaan ay u tagaan qof wixii bartay, ay la fadhiistaan, uu u sameeyo plan ama qorshe uu sameeyo, ay raacaan. dad badanna halkaas ay ku heshiiyaan. qof walbana wuxuu ku khaldanaa loo sheego, qof walbana wuxuu ku khaldanaa uu saxo. waxaan rajaynayaa eebbe idinkiis inaynu waddadaas mari doonno. waa saaxiibkiin Faad Qabyaaladiid oo maalin walba axada hadduu eebbe weyne idmo idinla wadaagi doono muuqaal qoseeya nolosha qoyska. waxaan idin leeyahay dhammaan idilkiin oo idinka codsanayaa haddii aad muuqaaladan ka hesheen qaybta commentiga in ay igula wadaagtaan, aadna sidoo kale subscribe ku qabataan page-ka. guuleysta. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.